waxaan ka hadlaynaa halkan maanta annaga oo beesha xibtire oqaasheedii suldaankeedii dhammaan u dhan halkan fadhina shalay waxaanu qabanay shaacin loo qabanayay suldaan axmed ciid sheekh muuse jaac gudaad oo aan ku shaacineynay suldaannimadiisa kolley sawir baa nooga soo dhex muuqday meesha macaaradeed reerka macaarad maaha beelaha xibtire macaarad maaha waa kulmiye suldaankuna kulmiyuu ku hogaaminayaa beesha xibtire wuxuuna ku daba joognaa oqaal iyo suldaanba haddaan nahay wasiirka arrimaha dibadda maxamed baxele boqorre halkuu ku hogaamiyaan anaguna ku hogaansanaa daba soconaa ku daba soconayna haddii ilaahay idhaaho sidaa kadib shalay sawirka lanaga qaatay meesha nooga soo baxay waxba kama jiraan beesha waxa weeye waa kulmiye waxaanu shaacinaynaa inaanu kulmiye nahay sawir shalay meeshaa ka soo baxay inaanu beesha qusaynin ee wax loo yeero nin qaldana uu soo ururiye oo sawir la qaatuun buu ahaa ee wax ka jiraan ma jiro shaacintaasi oo annagu aan ku shaacsananay suldaankaan ku shaacinaynay oo dhaqankuuna shaacinayay bay ahayd sawir gooriyaa la naga fidiyey sawirkaa gooriyana wax ka jira ma jiro ee shaacinta suldaanku oo mid dhaqan baa iyaga shaacinaya oo mid dhaqan buu ahaa siyaasadda kuma jirin maantana kuma jiro siyaasad dee beeshiisuna meesha salli calaa maxamed waxaan meesha ka caddaynaynaa shaacintii shalay ka dhacday rays wax dee soomaaliduba leedahayne kolkay madaxdhaqameed dooranayso caadaynayno ah wax macaarad haba yaraatee wax shaqaan ku leedahay maaha dee nin walba dhaqanka wuxuu aabbiyaha jiru ahaa halku wuxuu doonayaa suldaanku waddadii aabbihii waxay ahayd nabad baa lagu yaqaanay sheekh muuse sidoo macaarad geli buu ku dhintay hadduu inankiisii qabtayna waa tii nabadgelyada ugu joogaa waxaan leenahay sawirkaana laga dhex arkay waxaan dee dad waxaan wada dhalanay nimbe xisbi ku jiro siyaasadii soo gaar tahay ta waxaanagu kuma jiro walaalahayoona raacaya degadaaya laguma odhan sidaasayna wax ciidan ku jirin xisbiguna halkuu de wasiirku yahay uu ka hogaamiyo malmika dhahay intaa ka bacdi waxa weeye shalay xafladda aan qabanay waa mid xeer dhaqameedka soomaalida ku jira weeye cid kasta oo qoomiyadii suldaan markay dooranayso ee meel lagu shaacinayo ummad ballaadhan baa ka soo qayb gali karta wax yacno maaha siyaasad lagu matali karo waxa shalay meesha ka muuqatay mid annagana khusaysa reer ahaan maaha suldaan ahaanna noo khusaysana maaha waxa weeye kolley walaalkii adna waa walaalkaa baa layidhi annagu walaalkayo oo wasiirka ah halka uu ka soo jeedo xisbiga uu yahay reerka ku hogaaminayo kaasuma baan anaguna ka mid nahay beeshu isku raacsan tahay wax dhibaato oo annagoo beelweynta xibtire oo hogaaminayo suldaanka cusub suldaan axmed ciid suldaan sheekh muuse jaamac gudaad oo ku lahaa taariikh qadiimiya Soomaaliland halkan waxaan ka caddaynaynaa suldaankaan shalay shaacinay inuu suldaan nabadeed yahay inuu u hoggaansan yahay dawladda inuu u hoggaansan yahay hadba meeshay nabaddu ku jirto iminkana hambalyo qaaliya waxaanu dirnaa wasiir dawliyaha arrimaha dibadda Professor Maxamed Maxile Boqorre oo beesha meel fiican ku hogaamiyay hana ku raacsanahay dhammaantayaba sawirada shalay la sheegayana waxana ka noqoseeya maaha waxana ka noqoseeya maahin waa dad gobol ahaan xafladda uga soo qayb galanna ku arkaynay waxana ku beelaha shaaciyay hotelka Rice inaan u ahay suldaan beelweynta xibtire ee Hawar Cafaan waxaan xaggan ka caddeynayaa in shalay toole ay ahayd shaacinta weyn oo dhaqameedka ah oo dhammaan mas'uuliyiinta iyo uqaasha iyo salaadiinta ay isugu wada yimaadeen taas oo ku sugnayd ama ku mudnayd oo kaliya in ay tahay arin dhaqameed ah marka waxaan xaggan ka sheegayaa aniga oo suldaan axmed suldaan sheekh muuse jaamac gudaad ah in arinta iyada ah ay shalay ku ekeed oo kaliya dhaqameed wax siyaasad la yiraahdana ay ka madax bannaan tahay waxaan kaloon xaggan aan raacinayaa ama aan xusayaa aabahay
ilaahay oo naxariisto jannadii firdowsana ka waraabiyo suldaan sheekh muuse jaamac goodaad in uu ahaa ama lagu yaqaanay ama uu ku xusan yahay markasta nabadda Somaliland meel kasta geed kasta iyo guri kasta oo u fariistay oo aad uga shaqeeyay oo aad waqtigiisa iyo xooggiisa iyo dadaalkiisa u geliyay intuu noolaa waxaan leeyahay ilaahay aabahay ha ugu daro xasanaadkiisa aakhiro tii baan anigu hayaa wadadii aabahay lagu yaqaanay baan haynayaa aanan hayn doonaa insha Allah arinta shalay meeshaasi ka soo baxday oo loo bedelay inay siyaasad ahayd waxaan aan sheegayaa inaan ka maqan tahay arintaasi siyaasad dhaqameedna tahay xaggan waxaan kaloon ugu mahad celinayaa wasiirkeena wasiir dowlaha Maxamed Mixile Boqorre arintan sida fiican u soo gabagabeeyay u soo abaabulay wasiirku meesha uu yahay baan mar walba anagu daba taaganahay